dowladda Soomaaliya ayaa ka howlan badbaadinta bulshada Soomaaliyeed ee qawaariijtu nolosha u diiday. ciidanka qaranka ayaa qawaariij dib ugu xoreeyay dhul balaaran. halkaasi dowladdu waxa ay ka bilowday dib u dhis gaarsiinta dadka gargaar degdeg ah, sugidda ammaanka iyo fidinta adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka, si bulshadu ugu bogsooto dhaawacyadii iyo dhibaatooyinkii qawaariijtu u geysteen. kumanaan qof ayaa sanadihii tagay gaajo ugu geeriyooday deegaanada ay xoogga ku haystaan markii ay qawaariijtu ka hor joogsadeen in gargaar cunto iyo daryeel caafimaad la gaarsiiyo. hadda oo ay dalka abaar darani ka jirto, qawaariijtu waxa ay boob ku hayaan wixii ka haray xoolihii ay dhaqanayeen dadku abaartu saamaysay. dadka Soomaaliyeed ee harsanaya hooska dawladnimada waxay ku naaloonayaan nolol wanaagsan oo ka fog cabsigelinta, caburinta qawaariijta, xorriyad iyo horumar muuqda oo dhinac kasta ah. dowladda federaalka Soomaaliya oo u taagan daryeelka bulshada Soomaaliyeed waxaa ka go'an in shacabka Soomaaliyeed ay ka dulqaado dulmiga, go'doominta iyo gaajaysiinta qawaariijta. muwaadin, kaalintaada ka qaado dhismaha Soomaaliya oo xor ka ah arxan darrada qawaariijta. دولة المجير